السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواد صاحبي البرنامج غين قصوينكا أو برنامج كي روح كسو قادم دونا قبر كنو المقالة مقدشو تاسو لا إلى دران أريمها جعيلكا صاحبي الكسو دواد هدي أتقسي إنو هيسو حد إنو ولسو حريري كرتا إيوانكا أنو كل أنها فيسبوك أديقو كوكوراي فيسبوك عثمان مخلص كدوا يقصو درسان إيسانو وكو قلانا يا كدب قصدي أدينو هيدو هالكاس ياد نقل وداي كرتا أنا كانو حوصو بندقن دونا بلوشدا haddaba ku soo dhawaada saaxiibyal qisadeena aawa gabadhan waxay leedahay qiso aad iyo aad u xanuun badan ayaa raba inay bulshada la wadaago qaasatan dadka ku xiran Usmaan Muqlis saaxiibyal gabadhan waxay doonaysaa inaad siisaan talooyin fara badan waxaan u baahan tahay talooyinkiina haddaba haddii aad dhageysto qisadani aad nasiib u yeelato inaad dhageysato gabadhan taladii ugu fiican oo aad walaalkaaga siin lahayd bal hoos ugu soo xariiq si ay u akhrisato taladaada waa tahay ku soo dhawaada saaxiibyal qisada ayada inoogu warmi doontee haddaba dhageysi wacan كسر دوادا مرلبات موقالك آدي آدو مهسنتهين. السلام عليكم وأنا سلامي سودتين أصحابي إن أقول ليش نرتو قصير أو إني لو ذاك تطلير ناسيسان أوكي هذا القصيدة تحق بلاوني صورتكو لك اسمان داك سلامة aad u mahadsan yahay waa maanta inaa qisadan niilada qofkii igu dhiirigeliyo waaye saatan horta kuwa dhammaantiin salaanka bacdeen waxaa jiray wiil oo aan isla socon jirnay adii horta xiriirkeen wuxuu bilaabay aad muddo isbaranay muddo markaas naqaanay muddadii yacni asxaab ahayn بعدين واحد عادي حبايبي نتكلم أو لو دكتورني سيالتي مالها أو هبين يلبا 4 تاي أو هبين هين ممكن إنه أود عادي أنا دينكي وكيلة سنو جهلي بركاو يسحر رئيسو بنيك مدة بدسوعني markaa wadooda soconika bacdeen arin yar oo markaas dhankiisa ahayd buu ii sheegay oo inuu xanuunsiyo dhankiisa wax jiraan marka inuu bilaadankan dadka qaar waxay mudan markii qofku bilaadanka markuu xanuunsan yahay inuu dadka qaar ba xanuun dartiis qofku naaca inuu aan marka asuu wuxuu sidahay qofkan hada shifto ka fogaanaya soo ii sheegay waaye إنه قف قلبي يسأل كل جري مركا عنك والله قف واجه ليسوا معهن مركا قف ما عنده ظروف يوحنون لقونا عيا مجدا مركا أنا حكدا هاي عادي واي إن شاء الله في عنانيسا وحب قدر الله واي وحادث مسمعهن بيحكوا قرنا كودا عاي وحكوا قرنين وكا كوز ما عنده قفا وحو قرنين لا وقرن كودا عين وجرتو markaas muddo ayaa u soconay inuu markii sii dambaysto inanka waa sii jeclaanaya si xad dhaaf ah inuu markii ugu horeysay qof daacad u jeclaado si toosan ula socdo ahay laakiinse waxaa dhacday inuu isbedel badanaa ka dareemo markaa uu soconay muddo هذه بلوين بدن بعدين أنا واسكيجو دول قادين جرا إنه ما نقدم بس وحياة وفرح وحياة وإشي جرا سينو رشيسة حنون إنه ولا أنا ورتروم واي أرنت صديق خوف ما دي بالآدم لو شك إنه روم يبين بولاي يعني نسو قفكو كديع كرتا لكن سي وكلت هايدي قف ما أنتو noloshaas oo ii sheegay wiilka iyo waxyaabaha oo dhacay markaas ay u jiraan hadal kama gaarina waxaas niisha sheego oo way dheer tahay laakiin si waxa waaye jacaylka horta wax jiro waaye muddo markaa wada soconay habeen horta waxaa jirta horta ani habeen inta wada soconay aniyaasi هاوين والله مجرين هاوين آن معناها سدرتي سانونين آن أمرقون حتى ما نسيحان جرين مسيحان جرين
waxna miiga soo dhici jiray hurdo dhan miiga soo dhici jiray wax cuntaan dhan aaba sheeginba mabay soo dhici jiray ayadana cuno wax la dhahayo maanta haddaan codkiisa maqlin inuu yaadi markii dib wax dhacday gabar asxaabana inuu ku arko oo markastoo uu la hadlo anima gabadh ciwaankeeda ahaayay messengerku ahaay qof macaan messengerkeeda ahaayay messengerka waa arka fariin oo soo dira uu daleeda marka messengerkeeda fiir hadda sidoo maxaa jiro hadda fiiriyo taana badan asoo wacaayo la hadla arka marka ayadu u tagane hadda ani waa awco anada kooloyda ima sheekay qof faraad ayada u taga ayadu la hadlaa ayadan markaas qof xiriir leeyahay jaclad marabin laakiin xiriir oo soo badhigtay markii dambe marka muddo inaan gabadha asxaabna noo kulsoonahay walaashii waaye ayna waxay ma qarsi jiray ciwaanada waa kaleysan jirnay qof ayadan wax iga qarnaysa deetee maanta qof ciwaankeedu iga baxsan karta baswarkiga bedeli kartay markaas waxaa dhacday muddo kadib marka nolol hooyadii yidhaahdo wiil waxaa jiray saaxiibo ahayd best friends oo walaalkii camal yahaa iyo booska walaalkii iyo weyn ii taagnaa aan saddexdiina aan best friends ahayn mar walba isla tali jirnaa aniga gabadhii asiga walaayo garbeeyay ahaayeen maanta ayaga hadda ahaadeen waxa ay runta tahay maan ogaadin faanta jacaylka qofkaas bis ayaan dheetir lahaa inuu markaas wiilkaas baa markasta la tasi jiray aniga waa la hadli jiray oo u sheegi jiray markaas wiilka horta markaas baranay kiyo joogiyo kiimaad Muqdisho imaaday inuu halkaas sana wada soconay kii markaas baranay kiyo wuxuu imaaday laba isbuuc kadib kiyo kiimaad Muqdisho imaaday hal sana wada soconay halkii sana wada soconayna ma wada kulmin mar walba oo dhow waa wada kulmayna mar walba marmarsiyo keena أنا هودي وحيدي جرتي مركب صاحبانين هو معني لاي تاو صاحبتي دلو هذا يهد ويدو عيدني نورتو قف والد كسمركو لصاحب يهاي ووالد كسمر والبو كوس قفوي والدك وحول بو قرنيا وانتو كعن بدين وكوشيغي عقلي قنوسي كردينيا إنه يا هودي الحمد لله صاحب سليا وحكا مقرسي جرويل كان وابري إنه أنا ويدي ويل قصة حلو لسمي وابرا إنه أيضا يكسبت مادينا صاحب النقد أو ويل والبابرو أيضا كوكلسونا أفكس واحد جدد ووالد وتكعبسونا لكن أنا حدي لا والد كل صاحي بكس واحد بدنا قاعدين كودين أو غانيسان فانتين مركا maxaa dhacday hooyo arinta la wadaagay mar way waa jirtiina wiilka jecel xitaa wallahi waxa jirto ee aragtay magaciisa ku qortay jirkeeyii meel kamid ah waa u jeexay magaciisa ku qortay markii aragtay waxay dhacday inuu goosanayo inuu mustaqbalka la wadaagin ba u jeedahay saa u jeceshahay iskaga haraayo waxa uu soo kordhinayo hooyani way jecelahay kama hari kara ku dhahay hayo meeshu isla gaartaan baa arkayna markii hada hooy kulli isla soconay waxa dhacday 2021 markii bishiko manko geed waxa dhacay xitaa walaay xididkii gacanta midig xididkii la had calaamad ay ku taala ina qalin waxa jiro oo markii ciyaalka ay wax barbaranayaan koow qalin qoraha qalinkaas u taqaanaa magaranaya laakiin qorqoraa u naqanaareen sidanan ba marka gacanteeda ku xogayde way baratay seedkii xididii barara qofna lama wadaagin markii dambe anyway gabadha saaxiibahayna ogaatay fahamtay markii gacanteeda ku qoranayay magaciisa dad badan baa iga xanaaqay laakiin dadkii hado dad ii dhow yahay saaxiibadeeda hooyadeeda anyway laakiin
xitaa habeenkii waa magaciisa ku qortay gacanteeda waa ooyey. Waxaa waxay tahay dad badan baa iga xanaaqay oo adkayga qaali ku ah fahanteen. walaa horta jacaylka marka qof zaid ah u jeceshay waa xanuun badan tahay qofkana haddana oo noloshiisa dhan been kugu soo koobayo xitaa aad jeceshay inaad aragto haddana aadan arki karin laakiin asigu wuu arki jiray. ani sababta inaba ma garanayay wuxuu i dhihi jiray waa ku arkayaa. hadda kor waxaa jirtay anuu laamiga aaday laamiga waa isku dhownaana anaga hadda inaa maqlaysaa ma ogi. laamiga waa isku dhownaa bilka tak bax laamiga aad tago laamiga mama ka adeegto markaas maxaa dhacday xijaabka wato i weydiiyey markaa waxaa i dhahay haasatee fiican waa kuu jeedaa way dhahay inta ii jeedaa gadaashaas u fiir gaariga meesha yahay gaariga eegay marka iga xadhay soo dig haddii aad tahay oo dee soo degi jiray way dhahay dadaa la socdo marka okay waa ku dhahay saamba u eegi maagay wuu dhaqaaqay. marka ani marka bixi rabay hore ka dhaqaaqay gaarigii marka anigu waa yaabi jiray horta wallaahi ilaa hadda waa ku wareeray wiilkaas. marka aan la socday sheekadiisii iyo markaa soo xasuusto aniga yaabo sina u yaaba sina waxaa is dhahaa wiilkaas markay jeclaanaysa maskaxdaada jidha inay horta talo waxaan iiga baahanaa eeg markaa kala harnay bishaasa kala harnay waxaan ku aansaday magaala gacantiisa dhaawac gaarsiiyey dee waxaan ku dhahay markaas ana xadaalaan kadib noloshan kuma adkeysan karo oo ku jeclaadee adina runtii ima sheegayso maa wax runtii taa iimaan sheegaysid maxaa runtii waxaa tahay bilaadanka labada qof xiriir ka dhexeeyo maanta deen run isku sheegaynin waxaa waa xiriir ma jiro. markaas waa ka ana waxaa ku dhacay laasa inta noogu egtay waa kala harayna sidaygama harina waxaa waaye markii oo muddo joognay oo isoo wacay iyo isku soo laabanayna anu waa jeclaa wiilka maarmin oo isku soo laabanay laba beri kala socodsiis markuu ahayna waa ka haray fahanteen. bacdii markii ugu dambeysay soo wacay hadda dhow labada dhexdeed ahayd an marka waxaa ku dhahay balooga iska saar meel kastoo igala soo xiriiro of course noloshii hore inaad soo xasuusto hadda iin taagna hadda qof walba xiriir la sameeyo inabi inaa ka helitaan waa laga dhalay inaa jeclaado malagyaa of course xanuunkii hore awgehe nooye laakiin jecel oo jiraa madiidani laakiin hadda isma dhahayo qof saa u jeclaato u jeclaanaysaa xiriir walba maanta aa sameyne walaa wiilka asuu waxa iga hadlay qofka ila socno asuu waxa iga hadlaynin baa waxa arkaya inaan ka aamuso aan la hadlin aa u gaabiyo hadalka aa kala harno fahanteen. marka dibkaas ayaa haysato.